بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مقعد هذا أبي إبراهيم محمود. أنا مواطن جمهورية الصومال لنا وحن على استعاوة إن الموضوع هراء كهذا لي يكون صعب صناعة وده هذا لنا الصومال لنا الصومالية إن نعاونا كسي درو بالمرحلة دي أنتي أي من ماذا أي وحي من ماذا لو شيء الصومالية الصومال لنا وقت جاي يسوي مادين مرحلة دي لو خلاص سقنا بل تذكرنا يرفع سياق أقونهان شروعنا يو وحلا حريرة والنظام موضوع عن ما تكهل يا وح نقطنا مقدسه أو هيد مجال عن حر حين أي واحد معموليسي وطن حر أو الصومال اللي يدهده مدكوا يسوت الصرادة مركل مقدسه حر ما يهين معناه دمها مقدسه واحد هيستي نعيد مكره أو أنا هاي صومالي لكن حق الشرع مركل لقى مقدسه ستيل معها وقت حاضر كده إنه حتى تاجرنا معها مجال حر ويوم ما ينان مقال ما ينان مقرن ليس ما هينو مال ذلك يقول مثلاً شري إنجليز كنت برلمان كيس فريسي ويروح الريدي صومالي ونصيني أو أنت قرار برلمان كوجي يدول دودي أي سيان ما هينو مركها واحد نورا كرينا بين يرون مدودي لحدن كي وحنا ظلم جوالي حلقة قبتها كنت بقول حلقة ظلم قبتها بنتي ayaad moodaa inay ka awood weyn tahayba meelaha qaar waxaan hadaba in yaro taariikh hadii aan taariikhda yar dul istaagno muqdisho waxa weeyaan waxay ahayd magaalo madaxdii koonfurta Talyaaniga waxaynu oran karaynaa qarnigii 19aad ayuu meelahaas soo galay horraantiisii buu soo galay baynu oranaynaa geeska Afrika cidii ugu horeysay markaa uu heshiiska uu la galo waxay ahayd boqoradii ka talinayay waqooyiga Soomaaliya ee sida Puntland oo kale iyo ka talinayay ee ka mid ahaa ninkii loo jiray magarasa Suudaankii Yusuf Ali Kennedy iyo ninkii boqor Cusmaan Maxamuud loo oran jiray nimankaas ayuu heshiis la galay oo ahayd qaabka uu la galay ahayd protectorate inay noqdaan waana waqtiga uu heshiiska la galay waxa ahayd 1888 waqtigaani markuu heshiiska la galay ee uu yiri ma garanaysaa ay protectorate baad noqonaysaan waxay ahaayeen ummadii kali ahayd ee inta protectorate noqdeen iyagu ku duulay Soomaalidii kale maxbiyad bay iyagu ahayd laakiin waxay ku duuleen Soomaalidii kale si ay u guumeystaan oo xukunkii iyo heshiisyadii ay la galeen Talyaaniga ay ugu guumeystaan xagga boqortooyooyinkii kale ee koonfurta ka jiray ee ahayd Hiraab iyo qoladii loo jeeday qoladii Hiraab qoladii Galaadi iyo qoladii Biyamaal sandaladahoogi ay si cad uga hor yimaadeen gumaysigii Talyaaniga oo waqtiga ay iyagu la diriirayeen halka iyagu kuwaas kala diriirayeen boqoradan boqor Yusuf magarasa Ali Kennedy iyo boqor markaas ninka la yiraahdo Cusmaan Maxamuud waxay labaduba si cad u garab istaageen Talyaaniga waxaana weerareen Soomaalidii kale oo ay gumeeyeen oo ay iyaga madaxa ka garaacayeen marka waa ummadda kaliya ee Soomaaliyeed ee xaqiiq marka horta laga hadlayo meesha Puntland la yiraahdo gumaysi isku dayday inay Soomaalidii kale ay guumeystaan oo ay hoos keenaan meel kale oo guumeysta ah protectorate-ku wuxuu ahaa inuu iyaga ilaaliyo nabadgelyadooda ilaaliyo deegaanka ilaaliyo ma ahayn inay ku duulaan oo ay dad kale qabsadaan marka marxaladaha markuu soo maray Talyaanigu marxalado fara badan buu maray marxaladaha fara badan ee Talyaanigu uu maray ee uu ma garanaysaa waqtiga uu heshiisyada dadka uu la galay ee uu dalka Soomaaliya uu haystay waxa weeyaan waxaan soo qaadan karanaa markii ay ahayd taariikhdu 1936 markay ahayd 1936 Talyaaniga bariga Afrika oo dhan buu qabsaday oo khaasatan Soomaaliya ahayd ayuu si fiican u wada qabsaday Talyaaniga ayaa ka talinayay markuu ka talinayay markay ahayd taariikhdu 1941 ee dagaalkii labaad ee adduunyadu ay soo dhaweyd waayo ninka lagu yiraahdo Talyaaniga Japan iyo Jarmalku isku dhinac bay ahaayeen halka ay Ingiriiska iyo USA ay iyaguna ma garanaysaa iyo Ruushuna ay dhinac ahaayeen oo ay iyaguna ma garanaysaa dagaalkii labaad ee adduunyada saas loo dagaalamay marka waxaan oran karnaa garabka uu ka tirsanaa Talyaanigu ayaa wuxuu lumiyay Soomaaliya inuu sii maamulo 1941 markii pressure fara badan oo geeska Afrika oo Ingiriisku ku qaaday dagaal fara badan ayuu lumiyay meesha ka baxay marka uu meesha ka baxay ee uu ka cararay ayaa uu Ingiriisku qabsaday waa 1941 ayuu koonfurtu ka talin jiray dhammaan waxa qabsaday ee Talyaanigu joogay waxa qabsaday ninkii loo oran jiray Ingiriiska qabsaday
ingiriiska ayaa halkaa in badan ka telinayo oo 9 sanadooda marka waxaynu soo qaadanaynaa oo halkaa bal aan tilmaamayaa waqtiga ingiriisku qabsaday ayaa waxa dhacday in dadkii Soomaalida ee koonfurta iyo ingiriisku isfaham dheer baa dhex maray isfahamka dheera ee dhex maray ee Soomaalida iyo magaranaysa ingiriiska si dhex maray wuxuu keenay in uu abuuro urur la yiraahdo Somali Political Party oo la yiraahdo Somali Youth Club oo la oran jiray SYC ururka markii uu abuuray ee uu dhalinyaradii iyo dadkii aqoonta lahaa ee ay isfahmeen uu abuuray ee uu Muqdisho ka abuuray waxa 1943 1900 iyo waxaynu oran karaynaa inay ahayd 43kii ayuu meesha ka abuuray dabadeedna waxa uu keenay isfaham in magaranaysa meeshii la abuuro oo shantii Soomaaliyeed magaranaysa ayay maamul loo dhiso oo midnimadii shantii Soomaaliyeed halka dawlad ay Soomaali wada leedahay laga aasaaso iyagoo raba inay protectorate-kii Talyaaniga oo ay Soomaali wali sidii u sii guumeystaan ayaa waqtiga wax dagaal ku qaaday boqor Yuusuf Kennedy iyo boqor Cusmaan ciidamadiisii ayaa weerar ku qaaday dabadeedna midnimada ummadda Soomaaliyeed oo waqtiga dhici lahayd toos waxa uga hortimid dawladda Puntland baa markaa ka hortimid maanta Puntland sheeganaya ma jeertay ka hortimid dabadeedna sidii baa waxa keentay in uu Ingiriiskii gadaal intuu xanaaqo dabadeedna uu qorshihiisii nooca ahaa uu ka dhex baxo waxa kale oo aynu soo qaadan karaynaa oo aynu fahmaynaa Talyaanigu waqtiga ma garanaysa ay markii UN-ta iyo wixii la abuuray dagaalkii lagu kala adkaaday garabkii jabay buu ahaa ee aan abuurin UN-ta dabadeedna nin isagii ma garanaysa garabkii jabay ah xorriyad muu siin kareynin wadan uu guumaysanaya ama uu haystay waqtiga 1960 xorriyadda Afrika oo dhan ay caleemahooga ay lulayeen sida Afrika xorriyadda u qaadan lahayd Somaliland oo waqtiga xorriyadda la siiyay baa ma garanaysa aynu ka wada qayb galnay Soomaali oo dhami xorriyadda Somaliland bay ku wada taamiyeen marka waxa taan u irina been iyo run ayaa midoobayo been waxay ahayd iyagoon xorriyad ba haysanin koonfurtu ayaa waxay la midoobeen runtii oo ah xorriyadda haysta cadaymaan markaa doonaya inaan halkan ku bixiyo UN-ta goorta ku soo biiray Talyaanigu wuxuu ahaa 14 December 1955 ayuu UN-ta ku soo biiray Talyaanigu marka waqtiga isaga waxa la siiyay waxa la yiraahdo tilmaamooyin uu raaci karo oo uu kaga simid ahaan karo UN-ta oo la eegayo oo mar walba lagu kor joogteynayo oo la oranayo qodobada ma fulisay oo qodobada ma fulisay oo qodobada ma fulisay oo qodobada ma fulisay oo isagii lagu monitor gareynayo in uu ka mid yahay UN-ta iyo inaanu ka mid ahayn oo qodobadiisa lagu qiimeyn doono inuu ka simid ahaan doono iyo inaanu ka mid ahaanin waxa kale oo jirtay markii aynu xornimada ay la wada dhistay ee Soomaaliland xorriyaddii qaadatay ee ay ku biireen nimankii Talyaaniga hoos joogay ee la yiri midnimo ayaa dhacday ilaa 1962 bangiga ay leeyihiin Talyaanigu waxa uu si buuxda uga qayb qaadanayay in uu ma garanaysa uu Soomaali shilinkiisii maamulo marka dal xor ah oo xoroobay oo ku xoroobay Talyaani bangiga Talyaanigu inuu wali sii maamulo oo uu ma garanaysa miisaaniyadooda iyo dakhligooga iyo sida u dhaqmayaan iyo price-kooga iyo waxooga u jaangooyo xaq uma lahaadeen marka halkaasina waxa cadeyn iyaduna u tahay ilaa 1962 maadaama Central Bank Soomaaliya uu maamulayay ma garanaysa ninka la guulaado Talyaanigu halka waxa cadeyn cad ah in aan wax xorriyada aanu Talyaanigu bixinin mar saddexaad oo cadeyn kala ah waxa weeyaan markii 1994 la keenay ciidamadii UNISOM ay Soomaaliya yimaadeen waxa weeyaan Talyaanigu qayb ayuu ka ahaa waana wadanadii loo yeeray leeyahay wadankaagii kaalayo nabadgelyadii iyo peace restoration waxa la yiraahdo u samee marka ciidamadan isaga horkacayay ciidamadan isaga gacanta ku hayay oo ilaalinay taasina waxay tahay waa cadeyn kale marka waxaynu oran karaynaa markaynu dhinac walba iskaga soo koobno inuu dhinac walba iskaga soo celcelino waxaynu leenahay in magarasa Amisom 1 iyo Amisom 2 ilaa 1992 waqtiga ay iyagu hogaaminayeen Talyaanigu iyo iyaga loo daba fadhiyay wali taladoodiina iyagu ay haystaan meel alla meel ay ku cadahay in baarlamaanka Talyaanigu intuu fariistay uu siiyay xorriyadii ummadda magarasa Soomaaliyeed ee koonfurtuna ma jirto marka wali Talyaaniga waxay u xisaabsan inuu maxmiyad u tahay wadanka la guulaado magarasa Soomaaliya waayo ma laha xad imaga magaalo inay xor tahay ama wadan inuu isteetiro waxa lagu cadeeyaa qodobadan sida 19 magarasa 33 1933 adduunyadu waxay ku heshiisay Montevideo Convention wax la dhaaba lagu heshiiyay Montevideo Conventionku waxa weeyaan state ka sida loo qayxi kara ee loo oran kara waxa waa state ama ma ha state
waxaynu odhan karaynaa kow state inuu yahay waxa caddaynaya dowlad ma leeyihin government ma jira meeshii oo dowladnimadeedu ma jira population ma leeyihin oo ma leeyahay dhul xuduudihiisu xadiima yihiin oo la garanayo la leeyahay halkaa xuduud u leeyahay oo cayimanoo xuduuddiisa la garan karo oo la leeyahay xuduud buu dalkaa la leeyahay xuduud buu dalkaa la leeyahay markaa ta keliya ee imika soomaaliya hortaagan kow waxay tahay xuduudahooga ma cadda xuduudda ay la leedahay soomaaliya kenya waa inta ay kolba ka dhigtaan haddii dash baa yaallo haddii maanta waa iska taambareeriyo ay dowladda soomaaliya awood yeelato meesha doonta ka dhigan karta haddii aynu tagno xuduudda udhaxaysa etoobiya iyo soomaaliya xuduud cad ma aha awood haddii etoobiya awood yeelatana xuduudda xilli meesha doonta ka dhigan karta hadday soomaaliya awood yeelatana meesha doonta xuduud ka dhigan karta meesha keliya ee soomaaliya xor ah ee ummadda soomaaliyeed xor u ah ee afarta koonoodba ma garanaysa xuduuddoodu cayiman tahay waa somaliland waana waddanka keliya xor ah ee isagoo xorriyada haysta waddan bilaa xor ah oo aan wax xorriyada haysan uu maamulayay muddo 31 sannadood waana gaf sharci waxaanu leenahay markaasi sharcigu oo lagu gafay weeyaan intaas aan ku soo gabagabeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu